konton iyo sagaal sano ayaa laga joogaa markii ay ka xorooween gumeystaha koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. halgan dheer ayaa loo soo maray nabadda aan maanta ku naaloonayno. dhalinyaro iyo duqow badan ayaan ku weynay halgankii dheeraa ee gumeysla dirirka ahaa. sidee ayuu ku bilowday halgankii lagu helay xornimada? waxay noo sharaxay aqoon-yahan Maxamed Jaamac Maxamed. xorriyadani waxay ahaan jirtay xorriyad macaan. ummadda Soomaaliyeedna waxaa ku jiri jiray dad muwaadiniin ah oo aad iyo aad waxay ka soo bilaabatay xorriyadani niman 7 qof oo xisbi la oran jiray kuluu jigjiga ku samaystay ayaa ugu horeeyay wax xorriyad Soomaaliyeed ka hadla oo sabab ah si Ilaahay yiri waja'alna kulla shay'in sababan thumma atba'a sababan. wax walba sababan u yeelnay sababan raacsinay ka bacdina waxa dhashay geesiyaashii 13 ahaa oo SYL oo dhashay 1943 kuwaas oo qabiil iska ilaaliyay oo ahaa dad walaalo ah. Soomaalida maxay ugu dhigan tahay xornimada maanta loo dabaaldegayo? Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare ka tirsan Jaamacadda Muqdisho ayaa ka hadlaya. waa macno weyn ugu fadhida ummadda Soomaaliyeed. waa maalmihii ay didiiladooda iyo waxay ku taamayeen oo ahaa inay ka xoroobaan gumeystaha maalintii ay u xaqiiqowday. tallaabooyinkiisa hore ayaa xaqiiqoobay ayaan oran karaa, laakiin waxyaalahay ku wada taamayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed ma helin. laakiin gumeystihii inuu ka baxay oo maamulkii tooska ahaa ee lagu hayay inuu ka baxay ayay tilmaamaysaa. waxaa marka Soomaalida u taala macnaha xorriyadda inay ka dhabeeyaan oo macnahaas sidii xorriyadda macna ayay lahayd laga dan lahaa. dawlad madax bannaan in la helo, xuduudaheeda iyo wax walbaba ayaa ka talinteeda iyada u shaqale yani oo dawlad kale faragelinkeeda aan ka dhageysanaynin. sanado badan oo ay mid ahaayeen waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya maxaa saway in gobolada waqooyi ay noqdaan gobol isu taaga dawlad madax bannaan? aqoon-yahan Maxamed Jaamac ayaa markale sharaxaya. markii la isku darsaday oo labadii ay noqdeen Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaalida, ra'iisul wasaarana lama siinin ilaa cigaal ka hor, madaxweynena lama siinin, amalkii iyo wixii ay qabeen oo inay dawladda ka qayb galaanna waxba lagama siinin. care iyo xanaaq iyo ciil iyo maxaa idin keenay ayaa waxay burburisay amalkii waqooyi ay lahaayeen. sidaasina sabab waxay u noqotay in labadii la kala tago ilaa maantana lagu kala laayahay war dalkiina ku soo noqda. dawladda Soomaaliya waxay garan waayeen xanuunkii iyo dhibaatadii loo geystay in laga daweeyo oo walaalaheenni waqooyi lagu soo celiyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya. laakiin sida ii muuqata kuwa hadda madaxda koonfurka ah niman waxaas samayn kara ama ku tallaabsan kara. haddaba suugaano badan sidoo kale gabayo badan ayaa loo tiriyay midowgii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ee 1960kii. waa la kala dalaalaa ma qiimayso duniduna dagaaladii sokeeyay wixii dhacay daraas duulkii markaas sida maanta way ka duwantaa. miyaad uga daraysaan idinku ma daryeeshaan dalka ma ku keentaan kuwa maqan doontaan? dawladii ujeedaduna doodeedu waxay tahay diintaan idinku dhaarshay war dalka yaa la kala goyn.